$20,000 ma wax laga masiiraa ma wax laga hadlaa adigan i daawanayso $20,000 meeqa goor ku soo martay meeqa goor isticmaashay wax weyn kulama aha laakiin xagga TikTok waxay noqotay sheeko weyn waxay noqotay gabdhihii inay iscaayaan inay ragga hataa ay soo faragalaan rag aan ku arki jirin TikTok hataa waan ku arkay waxaa dagaalka weyn keena wuxuu ahaa haykal siduu uga bixin karaa boqorada styleka $20,000 maxay siisay muxuu ka faa'iiday 20,000 siinaya horta waxaa ogaataa labadan ayaga isjeclaayeen ayaga iswateen 20,000 iska dhaafa 1,000,000 hataa hadduu ka bixiyo anaga waxna khusaysa ma aha gabadhan waxyaalo badan ayuu ku jeclaaday waxyaalo badan ayay ka caawisay video ayay la soo duubi jirtay mar walba waxay ahayd garabkiisa gabdho badan oo maanta aqaano oo caan ah rag la socdaan intaasoo sano qaar 3-4 sano gabdhihii waqtiga ayay ka dhuminayaan ballantii ay qaadeen ilaa maantadan may oofinin rag badan ayaa commentiga ku soo qoreen videoga wiilasha kale muxuu uga dugan yahay magaciisa waa naga badbadiseen ayay dhaheen sababta ah gabar walba oo maanta social media isticmaalayso wiilkan way soo qaadatay iska dhaafa boqoradiisa wara xitaa gabdhaha kale ayaa ku fanayaan su-aasha waxaa waaye sidee noqon kartaa nin hataa gabdhaha kale iska dhaaf gabadhaada gabdhaha kale ku fanaan sidee ogaadi kartaa waa easy wax weyn ma aho inaad istijaahdo ma aho waa wax yar wax kalena ma aho hasha gabadha la socoto gabadha jeceshahay gabadha aad waqtiga siinayso gabadha aad ballanta ka qaaday ha khiyaanin markii hore waxaa la dhihi jiray gabdhaha ayaa kumanaan shiriyaan gabdhaha ayaa wax khiyaanan laakiin hadda waxay noqotay opposite raggii ayaa wixii samaynaya miyay xiiseynayaan maxiisay ka tahay war xitaa waxaa arkaysaa rag ku dhahayo markaa ku dhahdo ani xariiraan leeyahay oo balana qof ka qaaday wuxuu ku dhahayaa maxaa isku gadaysaa ani adi waa is ognahay ani adi inta isku baranay qof hadduu ku dhaho xariir ayaan leeyahay qof ayaan ballan ka qaaday qof ayaan la socdaa soo ma la xishmadayn jirin oo lama ixtiraami jirin oo qofka laga fogaan jirin maalimahan dambe waxaa batay rag ku dhahayaan wiil ayaa jira hadda ila fadhiyo oo asxaab nahno waxaan rabaa inaan weydiiyo bilaa gabadhuu la socdo inuu ka bixin karo $20,000 miyay u qalmataa baad u mahadsan tahay run ahaantii waayadan dambe waxay u muuqataa in guurkii uu aad u qaaliyoobay waxaa arkaysaa in gabarta inay rabto in loo dhigo guri hab casri loo dhisay waxay rabtaa in qalabka guriga yaallo laga keeno China laga keeno Mareykanka laga keeno Turkiga waxay noqotay wax caadi ah mana ahan gabdhaha kaliya oo joogo Kenya mise Soomaaliya mise Ethiopia gabar kastoo Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay doonaysaa in arooskeeda uu noqdo arooska ugu qaalisan arooska aadka looga hadlo aniga ahaan su-aasha ay weydiisay haddaan usoo laabto wallaahi waxaa jirto waxay dhahaan arooska aan yiraahde midka qaaliga inta badan ma waaro haddaan soo qaato dhowaan ayay ahayd markii xaafadda Islii aan ku aragnay gabar lagu aqalgeliyey ku dhowaad $30,000 gurigii loo dhisay arooskeegii wax kasto waxay isku noqotay $30,000 muddo kadib waxaan aragnay in ninkii iyo gabadhii oo isdagaalayo macnaha ma ahan in gabadha hadda ku aroosto lacag aad u fara badan macnaheeda ma ahan in aad weligiin isla joogaysiin waad ogtahay waayadan dambe waxaa batay furinkii boqolaal ayaa la furaa xaafadda Islii haddaan ka hadlo for example
waxaa arkaysaa xaafadaha kale waxaa aad ugu badan gabdhaha la soo furay. Yaa soo furay? Su-aasha. Waxaa soo furay nin ay aroosatay. Waxaa soo furay nin ka bixiyey lacag aad u fara badan. Waxaad ka hadlaysay gabdho ka masiireen lacagtaasi. Masiirka waxaa keena waxaa waayey lacagta lagu bixiyey. Gabar kasta waxay rabtaa in arooskeeda lacag fara badan lagu bixiyo. Waxaa ka hadashay Samiixa Khaliil. Waxaa ka hadashay gabar la yiraahdo magaceedii bal isoo xasuusi. Marish Beauty. Marish Beauty. Gabdhahaas kulliyeed aad magacooda sheegayso kulli wax qabo ma lahan. Waa gabdho wali suuq raadinayo. Markay maqlaan gabar hebel ayaa waxaa laga bixiyey intaasoo kun oo dollar markiiba masiir ayaa galaya. Waa wax caadi ah. Marish Beauty naag la qabo ma ahan. Waxay daba ordaa nin YouTuber ah. Waad ogtahay ninkaasi qofku yahay. Aniga halkan kaagama sheegayo. Waxaa soo hadal qaaday gabar kale oo la yiraahdo Samiixa Khaliil. Waad ogtahay iyadana naag la qabo ma ahan. Samiixa Khaliil naftarkeedana waxay daba ordaysaa nin YouTuber ah. Naagahan kulli oo hadda aad soo qaaday waa wada YouTubero. Waxay daba ordaan niman YouTuber ah. Nimankaasna haddii la fiiriyo run ahaantii niman guursan doonaan ma ahan. Qurux ku dhiigle ma guursan doono gabar la dhaho Marish Beauty. Sidoo kale Samiixa Khaliil aniga uma malaynayo in ay u gacan gali doonto ninka ay hadda daba ordayso Diris Cabdi. Waa inaad soo xasuusataa taasi waa fikirkayga aniga. Waa laga yaabaa inay is aroostaan. Aan ku soo laabto aniga su-aasha ay weydiisay. Wallaahi kama bixin lahayn. Mar haddii gabadha aan arko in meherkeeda uu qaal yahay aniga faraha ayaan kala bixi lahaa. Haddii maxay tahay sababtaan u sameynayo israaf? Waxaa jirto Soomaali fara badan oo baahan. Haddaba waxaa jiro abaaro dalka Soomaaliya. Soomaali fara badan ayaa rafaadsan. Lacagtaasi aan ku bixinayo hal gabar ah maan shacabka Soomaaliyeed oo rafaadsan. Shacabka Soomaaliyeed oo gaajada hayso. Shacabka Soomaaliyeed oo rafaadsan. Shacabka Soomaaliyeed oo rafaad ka hayo maan ugu deeqo. Aqaro wax bay i tare. Shacabkaygana wax ayaan u qabtay. Ma fahamtay Somali Home. Marka aniga ahaan uma malaynayo in ay jirto gabar u qalmayso mise u qalmi doonto inaan ka bixiyo lacag intaas gaarayso. 20,000 oo dollar waa ku dhawaad 20 milyan oo shilinka Kenya. Waa lacag fara badan. Waxyaalo fara badan ayaan ku qabsan karaa. Haddaad doonayso inaad lacag noocaas ah aad ka bixiso gabar Soomaaliyeed. Wallaahi haddii waa adigu waxaa laga yaabaa inay lacagta kaa badatay oo aqligii u yaraaday. Soomaaliyey qof kastoo halkan iga dhageysanayo waxaan kula talin lahaa in uu lacagaha